waa maxay Mercury? Mercury waa meeraha ugu yar ee habqorxeedkeenna. Fogaanta ay labadiisa dhinac isku jiraan ama dhexroorkiisa waxa lagu sheegaa 3100 mayl. Tani waxay wax badan ka yar tahay dhulkeena oo dhan 7900 oo mayl geeska gees. Oogada Mercury waa meel qalayl ah oo dhagaxaan iyo godad ay ka buuxaan oo inta badan u eg dayaxa. Qaybo ka mid ah oogada Mercury ayaa ah kuwa duuduub leh. Saynisyahanadu waxay tan u maleynayaan inay ugu wacan tahay nooc biraha ka mid ah oo la yiraahdo iron, midaasi oo isku soo kuduudisa meeraha markii muddo la joogaba. Iron waa curyo bir ah, sidaasi oo kale dhulka aynu ku noolnahay waxa laga helaa irono fara badan. Heerkulka iyo cuf isjidadka. Mercury wuxuu leeyahay heerkul sare maxaa yeelay ma lahan hawada atmosfeerka. Hawada atmosfeerka ahi waxay soo qabataa kulaylka si ay isugu dheelitirto heerkulka meeraha dushiisa ah markay qoraxdu dhacdo. qaybta ay qoraxdu qabato meerahani waa Mercury waxay gaari kartaa heerka karkarka ama kulaylka ilaa 800 oo degrees oo Fahrenheit. U fiirso, birta jikada kushiinka ee cuntada lagu kariyo waxay kulaylkeeda gaari kartaa intaasi nuskeeda. Si kastaba ha ahaatee, marka dhinaca qoraxda ka sii jeeda ee meeraha uu mugdi ama gudcur u noqdo, wuxuu meerahaasi helaa qabow aad u daran, midkaasi oo gaari kara 270 degrees oo Fahrenheit oo nusqaan ama minus ah. maadaama meeraha Mercury uu yar yahay uusan lahayn dayax ku wareega, wuxuu leeyahay cuf isjiidad ka yar kan dhulka. Tusaale haddii culayskaagu uu yahay markaad dhulka joogto 72 baan oo u dhiganta 32 kiilo, waxaad noqon lahayd 27 baan oo u dhiganta 12 kiilo haddii aad joogi lahayd Mercury-ga dushiisa. Meereysashada ama wareegaalaysiga. Xitaa haddii uu meerahani uu yahay meeraha ugu dhow ee qoraxda, haddana weli wuxuu ka fog yahay dhanka qoraxda 36 milyan oo meel iyo wadartood. Mercury waxay ku qaadataa 87 maalmood oo maalmaha dhulkeena ah si uu u dhammaystiro wareegiisa uu ku wareegayo qoraxda isagoo qaab ukumeed leh. waxay ku qaadataa meerahani Mercury inuu sameeyo hal wareeg oo kaliya 59 maalmood oo ah kuwa dhulka, taas oo macnaheedu tahay in hal maalin oo Mercury ay la mid tahay ku dhowaad 2 bilood. sanadkii 1974 NASA sahankeedii ugu horeeyay hawada sare waxaa sawir looga soo qaaday oogada Mercury. sawiradii laga helay sahankii dayax-gacmeedkii lagu magacaabi jiray Myrina 10 waxay ka caawisay saynisyahanada inay daboolka ka qaadaan qaar ka mid ah siraha meerahani. sanadkii 2011kiina dayax-gacmeedkii Faransiidaha lagu magacaabi jiray Messenger wuxuu galay xariiqa wareegga meeraha Mercury, wuxuuna bilaabay inuu ka soo qaado sawiro iyo warbixino faahfaahsan oo intii hore ka badan. marka la fiiriyo booska uu ku yaalo Mercury iyo xariiqa wareeggiisa, si sahlan ayaa loogu arki karaa indhahaaga iyadoo aanan wax aalado ama qalab ah la xiran arooriyada hore iyo maqribka. tanina waa sababta ay dad badan ay ugu yeeraan xidigta subaxii hore ama xidigta maqribkii. haddii aad barnaamijka wax ka faa'iiday, miyaysan habboonayn inaad rukumato ama aad subscribe saarato channelka si aad wax badan ugu faa'iido.